iyadoo muddooyinkii u dambeeyay magaalada Buuhoodle ay ka soo yeedhayeen baaqiyo nabadeed oo loogu baaqayo bulshada inay ka shaqeeyaan ammaanka guud ahaan gobolka Cayn ayaa ururka dhalinyarada ee BEFA oo maanta mas'uuliyiintiisu shir jaraad ku qabteen magaalada Buuhoodle ay ugu baaqeen bulshada gobolka Cayn inay ka shaqeeyaan ammaanka isla markaana ay u guntadaan sidoo horumarka ka soconaya magaalada loo sii ambaqaadi lahaa mas'uuliyiinta ururka BEFA oo ugu horeeyay Yuusuf Maxamed Xasan Abgaal ayaa maanta shir jaraad ku qabteen gudaha magaalada Buuhoodle waxay ugu baaqeen bulshada gobolka Cayn in laga shaqeeyo nabadgelyada xilli siyaasadeed isdiidana ay ka jiraan gobolka Cayn waa kuwan dhalinyaradu arintaasi ka hadlaya dhalinyarada BEFA waxaan ka shaqeyn doonaa horumarka iyo nabadgelyada maadaama dadka iyagu u baahan yahay horumar nabadgelyo wax qabsi waxaan dhawaan sameyn doonaa mashruuc la yiraahdo aan dadka wax ugu qaban doono dhalinyarada waxbarashada ka dhacday oo aan u sameyn doono wax la yiraahdo dugsiga farsamada gacanta oo aan tababar skill siin doono xirfadeed marka annagu shirkayagan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay inaanu ka shaqeyno nabadgelyada iyo horumarka gobolka waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan horumarada ee magaaladu gaadhay sida laamiga sida horumarka ka jira waan soo dhaweynaynaa iyo wixii horumar oo dhan waxaan aad u soo dhaweynaynaa horumarka iyo nabadgelyada ka saabsan gobolka Cayn sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa wax kasta oo nabadgelyo ku saabsan iyo horumar kasta ha noqdo deegaanka waxdan ugu jirto ka urur ahaan annagu mar walba waxaanu garab taaganahay nabadgelyada deegaanka mana doonayno wax qulqulada mana rabno wax dhibaato ah deegaanka dhacda aan ahayn maxay nabadgelyada iyo horumarka ayaan diyaar mar walba lanahay waanu soo dhaweynaynaa gudoomiyana aad baan ugu mahadnaqayaa barnaamijkan dhow ee uu soo waday wax lagu qaban doono dhalinyaradii ka dhacday aqoonta ee lagu sameeyo farsamooyinka gacanta horumarka deegaanka ka muuqda ee muddada badan ay u baahnid Buuhoodle waa mid ay baahi weyn u qabtay waxaana keentay oo suurta gelisay nabadgelyada Buuhoodle taala mar haddii ay nabadgelyadu ay tahay muqaddas oo ay tahay xubinta koowaad waanu ilaalinaynaa cid kasta oo carqalad ku ah nabadgelyadana waanu ka hortagaynaa waxaan soo dhaweynaynaa horumarka nabadgelyada deegaanka Buuhoodle ka taaba qaaday waxay u baahan yihiin dadkan wax qabad iyo horumar in loo sameeyo haddana dhalinyarada waxaan soo taagnay inaan horumarka ka shaqeyno iyo nabadgelyada hasi kastaba ha ahaatee ururkan BEFA ayaa ka shaqeeya horumarka gaar ahaan nabadgelyada iyo weliba mashaariicda horumarineed ee ka filo gobolka Cayn waxaana ay ku baaqeen in laga shaqeeyo nabadgelyada gobolka Cayn Axmed Maxamed Nadiif wararka Universal